السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وسعادة لا سو دواada kusoo dhawaada channelka Nawriye kusoo dhawaada gacmo furan kusoo dhawaada qalbi ini jecel ana inta kadib waxaan yeerajinaa saxaabina nabad qabtiin inay caafimaad qabtiin meesha joogtiin inuu ilaahay nagu nabad yeelo inagu caafimaad siiyana insha Allah ana mawduucan aan ka hadlayo maanta waxa weeye mawduucii la xiriirsanaa autism-gan xalayto live ka soo galay ayuu daba socdaa insha Allah marka maadaama aan idhi qodob baan u qaadan doonaa maanta waxaa ka hadlayaa laba qodob faa'iidadiisa iyo maxay dhibtiisa ayaan ka hadlayaa maanta inkastoo dhibtu badan tahay laakiin haddana xabad baan usii kala qaadanaa maanta waxaan ka hadlaynaa dhibtiisaan ku horeysiin doonaa insha Allah maxaan soo nidhi bay ahayd xanuunkan waa xanuun maskaxda ku dhaca maskaxda ku dhaca maskaxdii markuu ku dhacana waa xanuun aad la noolaanaysid ood weligaa aad haysanaysid oo saameynna ku yeelan doona nolol maalmeedkaaga iyo noloshaada oo dhanba saameyn ku yeelan doona caqabado badanna keeni doona markaas insha Allah ilaahay maarta ha u fudaydiyo dadka waalidiintana ilaahay ha u fudaydiyo ta u horeysa waxa weeye inuu maad aragtay macluumaadka soo gala inuuna ka shaqaysiin karayn inuu maad aragtay una ururinayn ama uu isku geegeynayn imka waxa soo qaad marka lagu yiraahdo waa dareemaysa waxa soo qaad baa laga yaabaa shaqaynaysa laakiin isaga waxa ma hayo uu yaaban yahay macluumaadka si fiican ugu shaqaynayaan talabaad shanta dareemood aan leenahay si fiican uma shaqaynayaan waayo shantan dareemood maskaxdeeda la shaqaynaa maskaxdeeda si fiican u shaqaynayna shantan dareemoodna si fiican ma shaqayn shanta dareemood maxay waa dhadhanka waa urta waa indhaha waa dhagaha waa taabashada maaha markaa shantii markaan taabsado waxaan taabsaday buu ii sheegayaa wuxuu leeyahay garabkii hebel weeji amba maraa taabsatay ama sariir baa taabsatay ama waxba kuu sheega markaa isaga ma jiro waxaasi shaqadaasi maskaxdii ma shaqaynayso mana sheegayso waxa uu taabsaday amba waxa uu dhadhamiyey amba waxa uu uriyey amba waxa uu arkaayo gadaal bay ka qaadanaysaa waqti bay ka qaadanaysaa marka waxa yaalaha sababaya inuu maarta ilmahan dib uga dhacsan yahay caruuraha kale ee marka horeysaba ay ku gartaan waa waxaas maxay ahayd oo dhib badan leh waayo qofkii intuuba maaragtay ay sheekada iskugu daba dhacayso waqti bay ka qaadanaysaa markaas waxaan nidhi maskaxdu si fiican u shaqaynayn maxay ahayd shantii dareemood oo si fiican u shaqaynayn ta kalena caruurtani social ma leh imika ciyaalka lama ciyaari karayaan waalidka lama communisiin karayaan waayo isagiiyo dhan baaba dee eeyar u socda markaa qof ordaayo lama socon karaayo markaste sociaalkiisu ma fiicna cilaaqaadkiisu ma fiicna cidba lama cilaaqaan karaayo qof ogoo dee suga amba waqti ka suga amba la socda oo fahmaya sheekadiisa weeji markaa dhibta waaba intaaba horta waxaan soo ogaanay waxyaalo kaloo badan intaas waxa weeji waa guud ahaaneed marka xabad baan hadda usii qaadanaa sociaalka saan soo sheegnay cilaaqaadka inuu maartay yeesho asxaab yeesho amba waalidkiisa amba familigiisa adigu nolol sociaala inuu yeesho way adag tahay waxaana adkeynaya maxay ahayd xiriirka caruurta uu la ciyaari lahaa waxaa adkeynaya waa maskaxdii si fiican u shaqaynin oo macluumaadkii imika ciyaalka markaas lacay waxaa soo qabay isleeyihin maakii kale uu soo qabtay marka isagii weli ma soo qaban marka caruurta kale waxay arkayaan si qof ka dambeeya ama fahmayn marka waa laga tuucsanayaa waa laga uu ka dib dhacsan yahay caruuraha kale oo dhan lama socdo marka waxay oo dhan weeji talabaad waxyaalaha gacanta aan ku hadlayo kale ilama socdo non verbalka waxyaalaha imika aan sameynayo kale kasik awdirka wejigayga sida uu dhaqdhaqaaqayo haddaan qoslayo haddaan farxayo waxyaalahay oo dhan kulama socdo way iskaga qasan tahay marka taasina dhibba u keenaysaa waxa kaloo xitaa jira marmarka qaarkood cid kasta iska aaminayaan qof aanan ku haboonin inay aaminaan ayay iska aaminayaan oy wax kasta uga sheekeynayaan wixii iyaga ma aragtay khuseeyay oo kale uga sheekeynayaan ama cagsigana way sameeyaan inuu maarta dadka faamiliga u dhow ee inuu wax u sheegto way ahayd uu ka xidhxidhan yahay marka labada dhinacba dhinac buu u badan yahay markaste markaas taa kalena dabeecad ayay ku xidhan tahay sociaalka dadka cilaaqaadka la leeyahay
tana waa muhiim wata ugu horeysa badi horta lagu garto waxaa kamid ah luuqadii oo ka daahaysa amba dib u dhacaysa oo maad aragtay ilmuhu gadaal mar dambe ayuu maad aragtay hadalka keenayaa oo uu intay caruurtii kale dee ay wayba hadlayaan way barteen marka isagii weli ma hadlaayo markasta iyagoo waaweyn jooga ayaadana ayna hadlayn oo waqtigii in lagu hadla ay dhaafeen ayay weli hadlayn taa waxaa ugu sii raacsan caruur kale waxaa jira xanuuno kaleo xanuunkan ku lamaan ayaa jira marka xanuuno kale hadday ku lamaayiin sida maaragtay waxaa jira dabaqaday leeyihiin intelligenceka maaragtay maskaxdani qofka oo 3 qoloba weeji qolo haya oo tafo oo meel sare joogta qolo meel dhexaada iyo qolo hoose markaas qolo kastina way sii kala sareysaa waxay leedahay dabaqada kale leedahay laakiin haddii uu autismiga uu ku darsadana qolada hoosena hadduu joogo oo uu ku darsado marka janiska uu haysto inuu hadlo waa nihil nacam way yarta waa 0 marka inuu hadlin baaba dhici karayso sidaa haddeed ku joogo laakiin hadduu dhexda ku jiro dhinaca maskaxiyan hadduu dhexda ku jiro aba xagga sare joogo waqtiga doonta baa ka qaadato uu hadli doonaa markaas waqti bay iyay ka qaadan doontaa laakiin marka labadaa waxoodna hadalka daahiya iyo hadduu doono wuxuu ku hadlayaa waxyaalo maaragtay inuu ku celceliyo imika aabo maanta oo dhan uu leeyahay amba hooyo amba leeyahay amba halkiibuu ku celcelinayaa oo soo noqnoqonaya isagoona la fahmayn had mararka qaarkood hadalla la fahmayn ay ku hadlaan wax mararka qaarkood waxa laga leeyahay waxa uu qaadanaya run ahaan imika waad ka cabsiiso waxaa tiri alla halkaa xuuxubaa joogta ama halkaa waxbaa joogo ku cunaa la talag wixii aad tiri meeshaas ma tagaayo ka cabsoonaya marka ha ka cabsiinina oo waxyaalaha xunxun ka ilaaliya waayo wixiiba wuxuu qaadanayaa run ahaan inuu maad aragtay wixii jiro ayuu qaadanayaa marka inaan lagu maad aragtay inaan laga cabsiin amba hadalla cabsiya lagu odhanin sida uu maad aragtay una hadhow uga cabsoon insha allah marka ay haystaan autismiga iyo maskax gaaban markay haystaan waxyaalo badan baad ku garanaysaa inuu maaragtay ilmahani wax kasii yihiin wax weeji inuu maaragtay maanta oo dhan inuu maanta oo dhan sidan ta iska hayo sidaas gacmihii sidaada hayaa maanta oo dhan oo gacmaha maanta oo dhan sidaa u socdaa taasi kow amba iyo gacanta oo dhanba sidan hadduu doono amba gacanta oo dhan inuu maanta oo dhan sida iskaga wado aduu dhaqdhaqaaqiyo aanan uu ku celcelinayo maanta oo dhan qaarkood way isduuriyaan saasay maanta oo dhan u duurayaan yacnii dhaqaaqiyo ku celceshanaya oo uu ku celcelinayo amba inuu boodboodo oo maanta oo dhan iska boodboodo lugaha faraha yaryar inuu saa ugu joogsado maanta oo dhan sidaa u socdo iyo inuu dhaqdhaqaaq uu ku celcelinayo markasta waa waxyaalaha ku tusaaya inay ma aragtay wax ka jiraan maskaxdiisa amba ma aragtay inuu caadi yahayn waxyaalaha ku tusay weeji marka inaad ku foojignaatiin ood aad eegtiin ayaa mar waliba muhiima kaasi waxa lamida kaas waa laakhikiga markuu qofku leeyahay maskaxda gaaban maskaxda haayiga xoogana waxan way leedahay dhibtan way leedahay wax waliba baleeg haddii uu tuumaash noqdo weligaa maskaxda banidaadu hadday tuumaash noqoto waxay isku bedelaysaa negative noloshaaday saameyn ku yeelanaysaa hadday talaakh noqotona hadday hoosta gashana saameyn bay yeelanaysaa marka wax waliba markuu noqdo uu ka badbato ma fiicno mar waliba waxaa fiican dhexda maayaa ilaahay baa bixiya wax waliba dee maaha siday tahay waa inaad ku qaadatid marka ilmaha maskaxdiisu hayda tahayna dhibaatadani way haysataa inuu maaragta isna waxyaalahan uu sameeyo ayay leeyihiin waxaana dhibaayana isbabedilkan maanta sidana loo socdo horta nolosheenu dee midda nolosha Africa maba noqonayso nolol sidaa uun u socoto ma noqonayso waa nolol maaragta nolol maalmeedkaagu siba maalinba sida ay tahay xaafadii dad baa imanaya familigii baa imanaya waa la buuqayaa waa la socdaa yacni wax sidaaya ma noqonayso
laakiin dhulkan way jiraan wax sida ayaa u jira noloshooda loo sameeyaa. marka isbabeddelkani ma qaadan karaya, maskaxdooda way ku dawaqaysaa isbabeddelkani. marka uma fiicna caruurta yaryar baa lagu leeyahay isbabeddelkani inaa marka wax isbedelo uma fiicna, way ka cabsoonayaan, way yaaban yihiin, way la cadilan yihiin. waayo maskaxdii haddana waa inay wixii oo dhan ay qabsataa oy haddana bedishaa oy haddana yacni shaqo kalaa usoo baxaysa. marka wuu cabsoonayaa wixii ku jadiid markuu noqdo shaqo badan uu ka rabo, hawl badan uu cabsoonayaa, noloshuu ka cabsoonayaa. marka taasina way uu cadhoonayaa, xitaa hadduu wixii u noqon weydo u cadhoonayaa, uu dirirayaa, hadduu doono waxbay dilayaan. marka way iska adag tahay. okay, taasina waa taa waxyaalaha lagu garanayo wejiyowna khafulakhayd yani sintaaqka. haddii imika dhawaaq xoog hadduu soo galo dhegta way dhibsanayaan oo maad aragtay way ku dawaqayaan oo dhagaa xanuunaya oo maad aragtay markasta waxay u baahan deganaasho iyo maad aragtay maxay ahayd in maad aragtay loo naxariisto oo loo dejiyo ayay u baahan. waxyaalahana hadday taabsadaan imika makhadadaha qaarkood marooyinka qaarkood baan ujeeda markaad taabsatid waad ku raaxaysanaysaa oo iisoo sheeg isugu makhadad baan iisoo qaaday. makhadadan oo kale maradan oo kale markaad aragtid ay sidaa u taabsato adba waa dareemaysaa inay maradu ay tahay maro qabow, maro maad aragtay waa dareemaysaa adba. marka waxyaalaha caynkani ilmuhu waa u fudud yihiin, waa u nugul yihiin maanta oo dhan sidaada haynaya maanta oo dhan. marka waxyaalaha jilicsan, waxyaalaha naftooda maaragtay u raaxaynaya amba adigu waxyaalaha sidan oo kalea maanta oo dhan buu sidaada haynaya kama agtegaya halkaasuu fadhini maanta oo dhan aduu waxyaalaha caynka arko. marka waxyaalaha ay ku dhiirigeliyaan weejima ku xitaa uu buuq noqdo uu dawo ku qabo dhinacu boodayo waad u dhiibi karaysaa maanta oo dhan buu sidaa u haysanayaa, sidaa u joogaa, uu jiifsanayaa, adu uu soo degayaa, uu kusoo degaya. marka waxyaalaha caynkani weeji waxyaalaha dadka caawiya badi ay maxay ahayd siiyaan markuu ilmuhu uu buuq noqdo amba buuqu galo ay siiyaan weeji. marka waxyaalaha caynkaasna way fiican. iyo muraayada iminka markaad siisa maanta oo dhan kuba dhinac ka eegaya korbasaan u eegaya uu isku mashquulsan yahay. marka muraayadahuna waa waxa dejiya marka uu diriraayo amba uu qaylaayo amba uu ku dawaqiyo. muraayad haddaa u dhigta maanta oo dhan sidaa uu eegayayo uu ku dawaq isagaa isku mashquulinaya. okay, taasi waxay ahayd dhinaca dareenka. hadda waxaan u gaadhnay dhinaca ciyaarta motoriika dhaqdhaqaaqa saan soo sheegay markaste waxyaalahu ku celceliyaa inuu maarata wareego dhaqdhaqaaqyo ku celcelinayo badi sameeyaa. waa dhaqdhaqaaqyadii gacanta luga faraha uu ku joogsado ku socdo boodbood way ku fiican yihiin halka inay dhaqdhaqaaqaan badi way ku fiican yihiin. connectivekana maaragtay waxay u badan yihiin caruur maaragtay qalqaaliga weji dhinaca maskaxiyan marka la eego waa qalqaaliga u badan yihiin. qalqaali ayay yihiin, ma fadhiisanayaan, ma dhegaysanayaan, ma joogsanayaan, maanta oo dhan buu socdaa, maanta oo dhan buu xaggan u orday. waa rafaad, waa lagu rafaadayaa dhinaca maskaxiyanta waa lagu rafaadayaa. marmar waxaa jirta xitaa cabsi inay iska gasho, uu cabsoonaayo, uu yaaba yahay oo uu maanta oo dhan maad aragtay inuu kugu daba nabnaado amba huuda uu galo uu iska cabsoonayo. marka caruurta ha dilina, ma fiicna in la dilo caruurta. horta in la taabsado caruur oo dhan in la dilo maaha, laakiin kuwaas way sii liitaan. cabsi xoogaa galaysa marka la dilo, cabsi xoogaa galaysa. cabsida xoogana maskaxdiisiyo marka horeba liidatay. markaad aad trauma aad sii gelisadna amba waxyaalo xunna ay u dareemana khatarteeda leedahay. markaa ka digtoonaada insha allah, ilaahay maartay inaguma bixiyo. markaa ka digtoonaada ha dilina. sasaba waxay ka helaan badi in la qaqabto, naxariis la tuso, la dhukado, loo salaaxo, waxaasay ka helaan. markaa dilista ka daayo adilina. waxbaradkiisana way hortaagaysaa inuu wax barto, way hortaagaysaa. ilma cabsoonaya waxma baranaya de maanta oo dhan cabsi baa ku jirto sidan kaxama baranaya, maskaxdiisa ma furfurna inuu maarata diyaaru maaha inuu wax barto. waa maskax xidhan, waa maskax cabsoonaysa, waa maskax walwalsan. iyo
marka uu orodka badan yahay dhaqdhaqaaqa badan yahay dan waa maskax mashquulsan marka wax ma baranaayo waxay hortaagi karaysaa inuu wax barto inuu wax dhigto ayay hortaaganaysaa okay tanina isagay ku khusaysaa sida uu isagu isku arkaayo haddaad adigu caawimaad badan siisid wuxuu isku arkayaa qof la ag taagaya qof fiican buu isku arkayaa laakiin hadduu heli waayo caawimaada badan uu heli waayo oo la dhiirigelin waayo oo la toostoosin waayo wuxuu isku arkayaa markasta markuu dhaco ama markasta markuu kufo ama markasta wixii markuu noqon waayaan qof loser uu isku arkaya qof aan waxba tarayn qof aan waxba qabsan karayn caruurtii kalena hadday doonaan ay ka tucsanayaan markaas qof noloshiisa yacni ku khasaaro kale oo waxba aanan qabsan karayn ayuu isku arkayaa marka waa in maaragtay la dhiirigeliyaa inuu karaayo inuu qabsan karaayo good job waxbaad samaysa waad ku fiicanta caruurta kale oo dhan waa u baahantay laakiin isaga waa ina indho gaara lagu eegaa waa caruurta laga soo dhex qaadaa talabaadna xaafadda waa inaa laga bilaabaa oo la yidhaahdaa aabbaha waa inuu ogyahay ilmihiisan inuu baahi gaarahay u baahan yahay caruurta kalena soo fadhaysa oo u sheeg waxaad tiraahdiin walaalkaa waa sidan walaashaa waa sidan wuxuu inooga baahan yahay juhdi badan buu inooga baahan yahay wuxuu inooga baahan yahay inaan caawino wuxuu inooga baahan yahay garab buu inooga baahan yahay cid kale ma haysto inagu ina haystaa inagu waa inaan isdul taagnaa waa inaan caawinaa waa inaan caruurta kala gaadhsiinaa waa inaan maaragtay sida u shaqaynayno aan barano iskoola ha la galo ha la baadho macluumaadka ha la baadho sidaad ula dhaqmi lahaydeen adigoon ma faamiliga oo dhan hala dhaqma guriga marka si fiican looga dhaqmana dibadda ha loo gudbiyo faamiliga kale jaarka dadka kale ha loo gudbiyo sidaa ha ula hadlin sidaa ula hadal saas wax kugu fahmay ceeb maaha xanuunka ilaahay baa keena u sheeg dadka kala cabsoon ilmaha igu autism buu leeyahay sidaana uu shaqeeyaa sidaas wax ku fahmay sidaa ugala dhaqan markaad aragtida inaad wax u sheegto ama la hadashaa rabtid sidaa ula dhaqan waa inaa loo sheegaa dadka kalena marka meel laga soo walajesto wixii way hagaagayaan insha allah fantazina way leeyihiin oo markaste waxay ku dhex jiraan adduun kale ku dhex jiraan adduun dhaldhalaalaya adduun qurux badan adduun waa kolba sidai uu isagu u arka adduunkiisa imika cabsidoo kale adduun cabsiyu markaa ku jira markaa ilmihii wadnihiisii caafimaadkiisa uma fiicna markasta cabsi ku jira wadniba saa xoog kuu shaqaynaya wadnibaa cadiban naftiisibaa cadiban wax kasta walaahay taagan oo maskaxdiibaa dixo ugu shaqaynaysa markaa ma fiicna inuu qofku cabsi ku jiro waa inuu habi noqdaa marka fantazigana waxaase kamid tahay oo hawo kale iyo wiiral kale iyo nolol kale iyo adduun kale ayuu ku jiraa maanta oo dhan waa mashquul isagaa isku mashquulsan oo wareersan oo maaragtay wax kaloo ku jira markaas inaad adduunkaasuu ku jiro inaad maad aragtay aad ka dhigtid maaha adduun cabsiya inaad uga dhigtid maaha inaad uga dhigtid adduun qurux badan adduun maaragtay la kala dambeeyo adduun dhalaalaya adduun waxa waa inaad uga dhigtid waayo maadaama uu sidan u nool yahayba sida uu nool yahay waa inaan loo qurxiyaa oo loola socda insha allah waxa kamid a talabaadna waa inaad maad aragtay hawaawiga iyo runta ma kala saarayo iskaga dhex biirsan tahay iminka hawaawi wuu ku jiraa runtii ma arkaayo meesha adugu runtii iyo hawaawigiiba waa iskaga dhex darsan yihiin iskuma sax maaha ma kala saarna markaas waa inaad adigiina la shaqaysid kolba meesha uu joogo xaalada uu joogo waa inaad ogaatid hadduu imika bilmatalan xitaa teeleega ka bedel teeleega hadduu maarata wax cabsiya ka socdaan ka dami inuu daawado maaha waxa lagu leeyahy waxa uu u arko teeleega waxa uu ka arko run ayuu u qaadanaya waxaa ka tiraahdid run ayuu u qaadanaya yacni ma kala saarmayso maskaxdiisu ma kala saarayso waxnaa runa iyo waxnaa beena waxnaa runa waxnaa khayaaliya ma kala saxayo adduunku waa isku wala mid isaga marka teeleeg waxaa ka socda haddii dagaal iyo dad la dilayo waxaas yuuna daawanin ha daawasiin waayo umaba garanayo inuu waxa run yahay inuu been yahay ma saxayo markaa run buu haysanayaa cabsiduna markaasay bilaamaysaa oo inuu cabsoodo ayaa galaya marka waxyaalahaayoo dhan waa inaa maarata qurux halkan waxaa la sameeyaa
tiriigana way ka helaan tiriigaan tereys babadilaya waxaasna way ka helaan waa in la siiyaa insha allah. baashan waa baashi maartay cadarka carfiga guriga laakiin waxaan doonaya inaan nagu tuso waxyaalaha caynkaayoo kale waa inaad tirigaanta caynkaa isbabadilayo kale way ka helaan oo waxaa la yidhahdaa snoozal waxyaala sinadhano waxaa ka shaqaynaya amba tirigaantaayoo dhan lagu xirxiray ayaa la geliyaa siduu maaragtay ilmuhu u dogo oo maaragtay u ciyaaro oo u dogo marka imika fitiinkahay ma arkaysin waxaan oo kale ayaa ku habboon inaad usoo gadiin wuxuu babadilayaa kalarku babadilaya waa tirigaanta maaragtay kalarka babadila marka kol akhtar buu sheegayaa kol casaan buu sheegayaa kol huruud buu sheegayaa kolba caynaduu sheegayaa marka ilmihii uu dejinayaa maantoo dhan buu waxaan ku mashquulsanaana uu degayaa badi waxay siiyaan marka ay kacsan yihiin ay mad aragtay ay dagaalamayaan amba ay cabsoonayaan ayaa lagu jeediyaa ciyaartiisa amba lagu jeediyaa hawada siduu maaragtay uga soo baxo adduunka uu ku jiro ayay badi siiyaan markaas waxyaalahayo badan waan inii soo dhigi doonaa insha allah waxa ku habboon amba ciyaaraha lagu ciyaarsiiyo amba waxaa dejinaya insha allah waa inila soo sheer garayn doonaa insha allah markaas waxa kaloo ku xiga hadda waxaas waa negativekii baahay hadda waxaan geli doonaa positivekii baan geli doonaa positiveka waxa weeji waxyaalo badan buu ilmahani ku fiican yahay waxyaalo badan buu ilmahani ku fiican yahay waxyaalo badanna way ka khaldan yihiin marka waxa fiicani waxa weeji aan ballanta u xajinayaa imika markaa ka tiray waxaasan samaynaynaa waa lagu weydiinaya iska jir ballanta uu ku fiican yahay waxa kaluu ku fiican yahay waxyaalaha qaarkood khatar buu ku yahay imika caruurtaasi xisaabta khatar bay ku yihiin badi oo tirada cajiib baan ku leeyahay wax badan bay khatar ku yihiin dhinaca maaragtay casharada waxaas way ku fiican yihiin aqoontoodu waa high wage markaad laakiin la dadaashina meel uu qabsan karaya oo imika caruur kale waxaa jira ka boodbooda laakiin isaga halkaabaad u dhibtay uu ku dhagaya halkaas maskaxdiisaasaa u shaqaynaysa marka meeshaas focus uu saaraya oo ku xajinaya iyo waxa kaloona doonayaana inuu ogaado wax kastana inuu barto doonaya marka maskaxdiisani waxyaalaha qaarkood hayba u shaqaynaysaa marka casharka iyo xisaabta iyo waxaas geli juhdi geli oo caawi ilmahaaga si fiican buu dhinaca uga soo baxaya waayo maskaxdiisan baa u jajaban inay wax kastaba qabato oo ay barato ayay u jajaban tahay shaqo haddaad u dhibtidna ma joojinayo adoo ka joojiya mayna ma joojinayo maanta oo dhan buu saa u wadayaa shaqadii wadaya markaa dhinaca shaqadana khatar bay ku yihiin runtana way sheegaan waa masaakiin weji imika markaad ka tirahdid waxaas aad weydiisay wixii sidiisiibuu kuu sheegayaa kaama weecweecinayo kaama been kuma sheegayo wixii sidiisiibuu sheegayaa waxa uu u malaynaya haddaad tirahdid xaafadda maad nacdaa mise waad jeceshahay uu sheegaya markaaba waan nacaa amba waan jecel yahay buu leeyahay inaad tagtood kusoo ciyaartid haddaad weydiisid marka mara buu ku ornaya oo kuu sheegaya yaalahan marka loo dhiibo si fiican buu eegayaa uu fikirayaa uu yacni waqti buu siinayaa oo si fiican ayuu u fikirayaa uu analyseynayaa uu ma aragta dhinac kastuu ka eegayaa oo yacni wixii si fiican buu eegaa waqtiga ka qaatay laakiin waqti buu siinayaa inuu ku eego indhihiisana waa indho ma aragtay cajiiba meel kasta wuxuu ka eegayaa detaay kasta uu eegaya imika stiiloogaasi saasuu eegaya maanta stiiloogaas halka khadku intaasuu ku joogaa kaninta yacni wax adiga aad saa u eegtid oo tira eesh waa stiilo amba waa qalin baa tiri ma waad ka weecatay laakiin isagoo xabad buu kugu dhigdhigaya waxyaala aad u fiirsanayn buu isagoo fiirsanaya waa waxyaalaha marta indhihiisu ay arkayaan okay shaqadana keliguu qabsanaya haddaad u dhiibtay shaqada saasaa u samey tiraada ood ka dhaadhicisid uu fahmo uu qabanaya kuma baahna adiga wixii aad u dhiibtay imika waxaad tiri dariiq baad imika tusta waxaad leedahay halkaa a ilaa bay baan tegaynaa baad tiri waxaad u dhiibtay khariidadiina waad u dhiibtay marna malaha waad geysay okay uu arkay
khalaas ma iloobayo meeshaas uu ku dhegsanaanaya maskaxdiisani ma waad u dhiibaysaa khariidadii uu ku geynayaa meeshii wixii mar arko waa cajiib uu ku dhagayaa imika maalin kasta waxaad siinaysa kasoo qaad furun ba maalin kasta cune maanta waxaad siisay canjeeraad siisay wuxuu ku leeyahay haa canjeeradani waa maxay aad siisay maanta uu fahmayaa inaad isbedishay waayo ruutiinkiisii baad ka bedishay ruutiinkiisi wuxuu maalin kasta sameynaya amba wuxuu ku dhaqmay amba wuxuu arki jiray ayaad ka bedishay markaaba waa lagu leeyahay haha xagga waxbaa ka siiya uu kuu sheegayaa markaaba okay wixii isbedelka markaaba uu kuu sheegayaa himurka maqlag bay ku qoslaana wax yaroo basiida ayaad kaga qoslin karaysaa marka way fudud yihiin sidaad uga qoslisid waa masaakiin way fudud yihiin sidaad uga qoslisid markasta waa iska farxaan tanina waa muhiim tani waa yeel muhiim wallaahi bilaahi computerka waxay ku yihiin khatar bay ku yihiin computerka wax kasta haddaad computerka u gelisid bisinka maasha allah cajiib buu noqonayaa waxaa lagu leeyahay computerka si fiican ba ugu shaqeeyaan si fiican ba u fahmayaan si degdega u fahmayaan qof iyagoo la sheekaysanin qof iyagoo u barin ma si fudud bay ku baranayaan waxaana ay ka shaqeeyaan baa lagu leeyahay caruurta caynkaaya dhibkeeni lamaba shaqagay laakiin dhulkani warshadaha caankay ka shaqeeyaan warshadaha waaweyn ayay ka shaqeeyaan marka iskooladooda lasoo baro lala soo da warshadaha waaweyn bay tagaan xisaabta computerka waxayoo dhan khatar bay ku yihiin warshadaha waaweyn bay la shaqeeyaan baa lagu leeyahay waa mawqalataad waa fursad uu ilaahay ku manaystay ilaahay afarta albaabad kaama soo xidhayo fursad buu siiyey marka warshadaha waaweyn bay la shaqeeyaan baa indhahooguna maarata waxyaala aanad arkayn bay arkayaan ooy fahmayaan ooy ka shaqaysiinayaan markaas waxay haystaan wax muhiima weji markaa dadka warshadaha computerada technolojiga waxaa ka shaqeeya oo dhan waa u baahanyiin wax halkaana la geeyaana si ay uga shaqaystaan marka xagga xisaabta xagga computerka xagga tacliinta way ku fiicayn hadday helaan weji tacliin wanaagsan marka waxaan odhan lahaa oon ku darsan lahaa hooyooyinka inay maarata waqti siiyaan ubadkooga inay iyaguna maarata waqti isa siiyaan say u baran lahayn xanuunkan oy baadhaan oy ka daba tegaan oy maarata meel kasta ay galaan sida u baran lahayn xanuunkan daba tegaan oy baadhaan oy si fiican ay u fahmaan xanuunkan wuxuu ka dhigan yahay iyo wuxuu gudo iyo waxa uu yahay ayaa muhiimadu ay tahay marka maanta laba mawduuc baa inoo soo qaaday videogina uu daba dheeraaday 30 mirir baan imanka hadlayaa marka insha allah labada mawduuc waxay ahaayeen muxuu ku fiican yahay iyo muxuu dhibaatada jirta waa maxay marka imika dhibaatadii waxaan kasoo hadlay waxyaalaha socialkii wax oo dhan baan kasoo hadlay wixii dhibaato way noo dhiman yihiin laakiin qaar baan kasoo qaaday iyo waxa uu ku fiican yihiin marka ilmaha negativeka la saarayo waa in laga daayaa qof kastina ma dhano qofba meel buu ku fiican yahay meel buu ku xun yahay marka hadduu meesha uu ku fiican yahayna kor loo qaado lasii xoojiyo meesha uu ka dib dhacsan yahayna waa in kor loo qaado iyadana marka qof waliba meel buu ku fiican yahay meel buu ku xun yahay ina maarata ilmahana khalad weyn la saaro oo la yiraahdo waa ilmo xanuunsan waa ilmo kani ha laga daayo ilmahani waa perfect ilmahani waa ilmo khatar weeji ilmahani waa ilmo maartay haysta maxaa ku idhahdaa maasha allah waxyaalo wax badan buu karayaa ilmahan hadduu helo dadaalkii iyo wixii ku habboona hadduu helo wallaahi wax badan buu karayaa sida ahaan waa in la dadaalaa oo la baadhaa maxaa ilmahayga seen u caawinayaa adigu isbar adigu faham waxa xanuunkan yahay iyo waxaad u baahan tahay faham markaas insha allah waalidiinta waxaan odhan lahaa hala dadaalo yaana la dilina waxa xun ayaan la daawadsiin indhihiisa u ilaaliya waayo waxay ku reebaysaa cabsi argagixiso ayay ku reebaysaa maskaxdiisii marka ha laga dadaalo mawduucyo kalena waa inoo soo wadaa insha allah xanuunka ku saabsan maanta waxaan jecelahay inaad labadaa shay ayaan soo qaaday inaad ka bogateen oo inay anfaceen haddaad videogan ka hesheen like-ta saara hadduu ini anfacayna ummadda usii gudbiya iyagana anfaco haddaad doonaysa ra'yi inaad ka bixisay videogan iyo xanuunkanba dabcan iyo mawduucyada aan kasoo qaadayna commentigiina ayniga arko hadday hooyooyin ay jiraan haysta autismka caruurta haysta hadday jiraana wixii aad nagu dhaantiin wixii aad ka aragtay experiencekaaga aad ka aragtay ilmahaaga fadlan nala wadaag hooyooyinka kale uga caawi ilmaha kale uga caawi siduu maarata uu helo nolol hagaagsan
subscribe kana saarta saad ula socotiin mawduucyada aan kasoo hadlaya muhiimka ah naftaadana u muhiima naftayda u muhiima ummadooda u muhiima markaas insha allah like subscribe kana saaro gambalaalkana furta dad badan ayaa igu xiran maasha allah oo igu soo biirsaday laakiin haddana dadka badana igu xiran dad badan oo iyaga kamida ah ayaa gambalaalkii aanan furan marka fadlan gambalaalka furta siduu inii soo dhaco waan arkayaa uu ii sheegayaa marka sidaasaan inigana iniigu sheegayaa gambalaalka furta siduu iniigu soo dhaco waayo haddii kale waxba iniima soo dhacayaan mawduucyadan soo dhiga lama soconaysiin amba hadduu inii soo dhacana gadaal buu inii soo dhici doonaa markaas gambalaalka furta aynu leeyahay gambalaalka ku dadaala inaad furatid insha allah saasaan isku ognahay iyo mawduucyada kale soo socda insha allah marka waxaan ii rajaynayaa soomaaliya meesha kastoo joogtiin ilaahay ina nabad yeelo ilaahay nagu nabad siiyo ilaahay nagu caafimaad siiyo sidaa iyo fi amaan illah baan leeyahay